qodobka koowaad faqradiisa koowaad dhismaha jamhuuriyadda ama heybta waxay ku sheegan tahay in uu ku dhisan yahay matalaadda shacbiga oo loo dhan yahay iyo nidaamka axsaabta siyaasadeed ee badan halkan wuxuu hor iyo horaanba hoosta ka xariiqay matalaadda shacbiga loo dhan yahay taasi waa magaciisa wuxuu tilmaamayaa sharcigan ay kusoo xirmayaa markii aad fiiriso qaybtiisa labaadna wuxuu leeyahay dastuurka oo wuxuu xaqiijinayaa in allah subxaanahu watacaala ka sokow dhammaan awoodaha gobonnimada lagu sheegayo maaha qabiil aan u dhashay kaas maaha waxaa weeye awoodaha gobonnimada la yidhahdaa waa tan waxaa meesha aan goobta aan fadhino waxay ka mid tahay awoodda sharci dejinta awoodda fulinta iyo awoodda garsoorka gobonnimada saddexdaasay ka koobantaa marka wuxuu leeyahay awoodda gobonnimada oo dhan waxaa iskale shacbigaa leh wuxuuna awooddiisa u adeegsanayaa hadda si toos ah ama isagoo adeegsanayo hay-adihiisa u doon si toos ah oo markuu codaynayo oo ku ridayo muwaadin kasta oo ku ridayo waa adeegsigii tooska ah marka uu sida dadban u isticmaalayo waa markii annaka golaheenna uu ku samaynayo korjoogtaynta xukuumadda uu ku samaynayo iyo shuruucda